بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يلوحان كجرنا هبين نذي إيا مالمه بركيسنا يا مؤمنين عباداتك إله سبحانه وتعالى يكون مشغول صناعين عالمك أو دنب مؤمن كسو جوغا هبين نذن وهبين نذا تسابقه لسمين إيا تنافسك عباداتك إله سبحانه وتعالى هبين نذن إلهي أو كدارتي دارتا أو كدارنا يا ربي وحاونا تسيا سبحانه وتعالى فلدق إليهين إساقا ربي khalqigiisa barba barka kale ayaa uu ka fadilay amaakinta waa la kala fadilay ashkhaasta iyo dadka waa la kala fadilay zamanka laftiisa ayaa la kala fadilay cibaadaadka laftoodii ayaa si kala fadli badan kolka waxa inuu qofku uu la jaan qaado ka faa'iideysto waxa kamid ah makaanka oo kale amaakinta muqaddaska ah baytullaahi alxaraam masjidka nabiga kaleey salaatu wasalaam masjidu al-aqsa intuba waa inta la fadilay amaakinta la fadilay ashkaas la fadilay rusushi ayaa kamid ah hadana rusushi baa ugu sii fadli badan hadana rasuulkeena baa ugu fadli badan kaleey salaatu wasalaam hadana muuminiintii baa sii kala fadli badan zamankii baa la kala fadilay zamanka badh ayaa laga fadilay bishii ramadaan waan soo aragnay fadligeega habeenadanna fadligoogu waa qaali waxana ugu sii fadli badan tobankan yawm arafa ayaa ugu sii fadli badan Allah ina gaarsiyo inagu simo cibaadaadkana Allah ina waafajiyo subhanahu wa ta'ala saadarteed ayaad arkaysaa qofka muuminka jadwal ayaa mar walba aw dhax socda waxa uu ka guurayaa mar walba mawsim fadli badan hadana mawsim kale oo fadli leh ayaa u galaya wa nimcooyinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo muuminiinta aw ku manaystay ee mar walba ay ku jiraan fadliga Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo cibaadaadkiisa waxa la inaga rabaa taa'aadka inaan badsano sadaqad haday tahay salaad haday tahay tilaawadii kitaabka Ilaahay haday tahay dhikri haday tahay duca haday tahay tadarruc haday tahay labada waalido loo samafalo haday tahay raximkii oo la xiriiriyo haday tahay xawaa'ijta muslimiinta oo loo gudo oo la kaalmeeyo haday tahay dadka xanuunsanaya oo la buuqdo haday tahay janaa'izadooda oo la raaco haday tahay dadka baahan oo la siiyo cunto haday tahay intaas oo dhanba waxa laga rabaa qofku inuu anwaacda faraha badan ee cibaadaadka mid walba uu gacanta geliyo waxa kale oo laga sii rabaa qofka oo fudud Ilaahay agtiisana weyn subhanahu wa ta'ala rasuulkuna badsada uu leeyahay takbiirta tahmiida tahliisha tasbiixda intuba waxa weeyaan waxa la rabaa qofka carabkiisu inaanu marnaba aanu ka qaadin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah allahu akbar inuu qofku mar walba wado رسولك حولي عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام وطبعا كان أنكو جرنه فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد وحد بطسطان إلهي سبحانه وتعالى ما الممجران أو إلهي أكتس كوين أما أكجع لي إن إلهي اللو عباديسته طبعا كان إنما رأيه أن وحد بطسطان تهليش ولا إله إلا الله تكبيرة الله أكبر تحميد الحمد لله أعماش الله قرب قفك وحكمت صدقتنا يدنا وشيء لقى مارمان أو قفك أما هيراته أما بدناته وما المهجي أو قاددي وحنا الله قربا إنه قف يعني دباتي سنة وفرحت قليو لإدخال الفرح والسرور يعني قلوبته تتكباهن دباتي سن وقته أو هيسته إن لقى فرحي أي إذن إله اللي قدوانه سبحانه وتعالى معلومها قفكو cibaadaad fara badan inuu ku mashquulo ayaa la rabaa cibaada marka uu ka daalabata kale inuu wareega ayaa la rabaa habeen iyo maalinba inuu qofku dadaalkiisa uu sameeyo ayaa laga maarmaan ah rasuulku waxa uu leeyahay kaleey salaatu wasalaam oo uu noo sheegayaa maalmahan fadligooga iyo wanaagooga waxa uu leeyahay rasuulku ma min ayaamin al-amalu saalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayaam مجرم مالمو عملك الصالح إلهي أقول عليه سبحانه وتعالى إن لقوا عباديسته أو كجعليها مالمهن قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله رسولك إلهي وحل ويدين يا جهادك أو قال أيا لويدين يا حتى رسولك إلهي جهادك إلهي نميا جهادك أو قف نفتي سي مالك سي إلهي درتي وبحيي قل رسولك أولي ولا الجهاد في سبيل الله حتى جهادك في سبيل الله يا إلا رجل خرج قف بحي
oo isaga oo naftiisii la baxay maalkiisiina la baxay oo ina waxba ka soo noqon mooyaane bareeg jihaadkii baa la leeyahay qofkii maalkiisii baa israacay qofka maalkiisii ka tegay naftiisuun la taga kaa iskaba daa labadiiba way israaceen labadiiba way soo wada noqdeen kan baa ka fadli badan cibaadaysanaya labadiiba way israaceen maalkii baa soo noqday naftiisiisa way hadhay kan baa ka fadli badan labadiiba way israaceen qofkii baa soo noqday maalkiina waa hadhay kan baa ka fadli qofka ayna waxba ka soo noqon uun baan la gaadhaynin kaa mooyaane inta kale oo dhan qofkan cibaadaysanaya waa fadli ilaahay dee fadli ilaahay oo cadiima oo in laga faa'iidaysta ay tahay ayaa laga maarmaana waxaana ugu sii fadli badan maalmahanina maraya maalinta sanadka oo dhan ugu fadli badan ee yowmu carafa oo soonkeegana loo sunneeyey qofka aan xaajiga ahayn soomkaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu inoogu sheegay inuu qofku dembi dhaaf iyo makfiro ilaahay uu ku helayo oo loogu dembi dhaafayo 2 sano ayaa dembi dhaaf uu ilaahay ka geelaya subxaanahu wa tacaala yowmu carafa waa maalintii ay soo degtay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina xaj jumca ayaa ay ahayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam xajkaa kaliyuu xajiyey sidan sanadka oo kaleba xaj jumca ay u tahay yowmu carafa ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam aayaddan baa ku soo degtay alyawma akmaltu lakum yoomka la sheegaya waa yowmu carafa waxaan idiin dhammaystiray diinakum diintiinniyo ayaa dhammaystiran oo kaamil ah ayaad haysataan nicmadii wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadaydiina waan idin dhammaystiray iyadana waradiitu lakum alislaama diina waxaan idinkala raalli noqday islaamnimadana diin ahaan baan idinkala raalli noqday waa nimco weyn cumar binu khadaab waa ka nin baa u imanayo weydiinaya waxau leeyahay cumar binu khadaabow aayad kitaabkiinna ku jirta aad aqridaan oo laga yaabo inaydaan sidaa u dareemayn haddii annaga nagu soo degi lahayd aayaddaasi waxaan ka dhigan lahayn maalintaa iyada ah ciid baan ka dhigan lahayn maalintaasi ciid bay noo ahaan lahayd buu leeyahay maalintan ayaa uu la yaaban yahay aayadda soo degtay ayaa uu la yaaban yahay laakiin waxa uu moodayaa muslimiinta inay hoos marsan tahay oo muslimiintu ayna dareemayn cumar binu khadaab radia allahu tacaala canhu ninkaa weydiinaya waa uu jawaabay cumar waxau idhi qad carafnaa dalika alyowm walmakaana aladii nazalat fiihi cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam waxaannu ognahay maalinku maalinka uu yahay waxaa kaloonu ognahay barta iyo meesha uu taagnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulka ayay ku soo degtay buuhi aayaddu wahuwa qaa'imun bicarafa yowma aljumca isagoo maalin jumco oo ciidul asbuuciiba ah ciiddii weynaydna ciidul akbarkiina waa maalinta ku xigta ee tobnaad kolkaa maalin jumca ay soo degtay oo iska ciid ah maalinka kale ka dambeeyana waa ciid maalinku waa kii sanadka oo dhan ugu fadliga badnaa waa yowmu makfirati dunuubi waalcidqi min annaar waa maalinta ilaahi subxaanahu wa tacaala dunuubta uu ka dhaafayo mu'miniintiisa naarta uu ku xoraynayo oo ugu faanaya biahli lmawqif subxaanahu wa tacaala waxau rasuulku leeyahay maa min yowmin maalin ma jiro ka fara badan inuu ilaahay addoommadiisa naartaa ku xoreeyo min yowmi carafa yowmu carafa ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinkaasu ayuu ugu xoreyn badan yahay allah inaga xoreeyo dembigeenna allaha dhaafo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka waalidkeenna allaha dhaafo cibaadaadka allah ina waafajiyo allah inagu arsaaqa ikhlaas subxaanahu wa tacaala aakhiriya adduunyadana ilaahay allah ina badbaadiyo وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته